waa mar kale iyo barnaamijkeenii suugaan iyo sooyaal. waa barnaamij ka warrami doona suugaantii hodanka ahayd ee aynu lahayn ee ay curiyeen foolaadkii hore maansayahanada raggii mudnaa ee qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad waaxdiisii hore iyo waaxdiisii dambaba noolaa iyo halabuurka daada yar leh hadda kacay intooda midhaha wanaagsan leh aragtida toolmoon ee fikirka kaalingalkaa soo jeediya iyo sooyaalkeennii bilaa ee boqranaa noloshiisay u naqaanay nabad iyo colaadsiina u kala guddoonsan jirnay taariikhihii maanka ummadda ku sidkamay waxaasoo dhammaa barnaamijkeennan suugaan iyo sooyaal oo ka kooban labada waaxood inoo soo tabin doona. dhegaystayaal toddobaadkanna waxaa marti inoogu ah barnaamijkeenna suugaan iyo sooyaal walaalkeen cabdalla maxamed sigad oo ah halabuur da'yar da ahaan waa yaryahay laakiin murtida iyo midhka uu curinaya ayaa ah mid kaalin gala. hadal waa boqol iyo boqone hadalkiisu kaalinta uu u gacan qaado waa mid buuxiya. waxba yaanaan ku dheeraan aan idhaahdo cabdallow horta halkeed ku dhalatay imsadii baad ka dhalatay? waad mahadsan tahay mawliid aadan biixi oo ah dadka kow ka ah oo aan ka faa'iidaysto maaragtay dhaqanka iyo suugaanta iyo sooyaalkii ay bulshadani lahayd. waxaan aad kuugu bogaadinayaa barnaamijyadaadan dhaxalgalka ah ee dadka uga tagto. inta haddaan mahadnaqaaga ku dhaafo, waxaan ku dhashay deegaan miyi ah oo ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya, magaciisana la yidhaaho Sangumare oo u dhexeeya Garbo iyo magaalada Dhagaxbuur una dhow magaalada Garbo. oon ku isleeyahay walow aan dee anoo yar ka wareegay, wuxuu ka tirsan yahay gobolka Nogob. aan isleeyahay halka ayaan ku dhashay. waxaanan dhashay dee miyi baan ku dhashay oo maan ahayn dadkan warqadaha iyo maaragtay loo sameeyey ee dhakhtarada ku dhashay. sidaas daraaddeed odayaashii aan weydiiyey ee da'dayda ii sheegay waxay ii sheegeen 1993 ilaa 94 bay dadka qaarkood soo gaarsiiyaan. ninka iigu fogeeyey laakiin wuxuu yidhi waxaa dhalatay 92 laakiin ma dhexdhexaadkaad qaadataa mise ka horeysaad qaadataa? labadaasaan isweydiiye ka dhexan deedna qaatay. 93 kaad qaatay? haadiya waa tahay. cabdallow qofo mar buu isogaadaa inuu hibada hal abuur leeyahay oo wax curin karo. maalintii bay ahayd markaad istiraa laylehe hibaa kugu duuganow hal abuur baad curin kartaa? suugaantan iyo waxaan isleeyahay ilaa yaraantaydii waa igu dabeecaysneed. sababtoo ah markaan arko suugaan meel ka baxaysa ama gabay meel ka baxaya waan u soo degdegi jiray, aad baan u xiisayn jiray, waanan qaybi jiray suugaantii dadkii hore baan wax ka xifdin jiray. hase yeeshee 2013 bishii 6 subax iyo ayaan hawl la soo yar toosay muruga lahayd oo markaa dhacday oo maaragtay waxyaabahan had iyo goor Soomaalida dhexda ka dhacay dagaaladii hawlaha nooca. nin baa deedna wuxuu igu yidhi maxaad wax ugu odhan weyday anigoon markaa waxba isku ogaan. hase yeeshee suugaanta hore wax ka aqaana. waa tahay. dabadeed waxaan ku yidhi iskuma boogiyo hal abuurba mihiya maxaan wax ka idhaahaa. haye hase yeeshee markii uu yidhi waxa odhaah buu ii raaciyay odhanaysa waxaan isleeyahay haddaad afka u kala qaada suugaan qofkugula midaa la arki ismalihi buu igu yidhi. Sulum Cali Cabdilaahi baa ninkaa la odhan jiray. waa tahay. dad cabdallow afka kala furato qofkugula midaa la arki ismalihi buu yidhi. waay arrintaa markuu deedna waa yara xara dhaamin aad iyo aad dabadeeto arrintaa markuu isaga ii sheegay baan aniguna isabab waxaan la sheegaya bal maadeegti. waa tahay. gabay deedna waxaan curiyey la yidhaaha Gurmad markaas waay isla subaxdaaba waay markaa waad u fadhiisatay? waan u fadhiistay, waan qoray. haye gabaygaa ma wada xafidisani laakiin hal tuduc baan ka soo qaadi karaa aada u kooban. waay dadkii fitanka nooca ahee dagaalka hogaaminayay baan laba dhinac bay ahayn oo kuwa dadka isku dira oo labadii qabiile ee dagaalku ka dhexdhacay kala hogaaminayay oo aniga iigu sinaa uun xagga maaragtay falkay wadeen foolxumidiisu ayaan kula hadlay. maamaahun baan ku dhisay ahayd rag iskeejin uu ku tala seegaa dumarna way ku tag seegaan. waxay deedna odhanaysay mahmaah gudboonayd haddaan geesta kala raaco rag iskiijin taladii kusee guurti baa tidhiye dumarkuna ku guurbeelo oo waayo gurigii kuwa godobta raaraadinuu nabada geesoodba garaadkoodu qaangaadh ma aha waana garanayne garyaqaanka xaajada hufow hayla garan waaye.
وأنتي كوباد أتجاوي كوباليسين intaas بارا الله كوهيد با intaas ay horeysa واي أرد ساداشة وناكسنة الصلب aad iyo aad كويري هذا أتجاوي هلا كاغو تسقط ويلانيا wax badanna waa lagaaga caayaya waayahay markii aad suugaatay inaad hal abuur tahay waad fatahay gees kastaba waad u jarfatay hal abuur badan baad tirisay aad iyo aad maansooyinkaaga dee waxaa ka mid ah qaar aad kaga sheekaynayso dee waayaha aynu ku jirro tusaale ahaan mid colaad leh mid nabad leh mid guur leh dee ilaahay kuu sameeto mid waxbarasho leh si walba waad u hadashay waayahay maansooyinkaaga waxaa ka mid ah mid tix la yidhaha gabay la yidhaha dhambaal bal tixda dhambaal la yidhaha iyo xilligay soo baxday iyo weliba dhegaystayaal ku daray cabdalle ma aha ragga gabayga sheega uun waa ragga luuqda raaciya tix kasta oo inoo qabtana wuxuu inoogu dari doonaa codka dee dareen taabad kale balaanaada cabdalle iyo tixda dhambaal goortii uu tiriyey iyo ujeedada guud ee ka warramayso waad mahadsantahay mawlid tixda dhambaal waxay soo baxday 8 bishii 9 2015 galab ayaa aniga iyo ninka la yiraahdo Yaasiin Maxamed Faarax Yaasiin Madaale oo sheekaysanayna wuxuu igu yiri niyo Cabdallah dhaqanka wax ma ka tiri waxaan dina ku gabay madax banaan oo hadda ka tiriyay ma jiro hase yeeshee gabay aan dhamaystirnaan oo wax yar ka idhi ayaan hayay niyo inaan dhamaystirnaan waan rabay dhaqankana waa laga fiican yahay marka anigu ku idhi dina wuxuu niyo da'yarta dadka aan ku tumaad ka mid tahay dhaqanka bal ma tixda dhamaystirto ma gabay bal wax ka tiraahid buuri dabadeed dhowr qodob marka aniga ii yar muuqday baan tixdan ku soo ururiyay tixda dhambaal baa la yiraahdaa waxay ka warramaysaa waa fariin loo diray da'yarta loo dirayo loogana soo diray dhaqankii looga soo diray waxay deena tixdu taabanaysaa marka hore arar yar oo kooban buu ku bilaabayaa dhextaal yar oo deena wuxuu sameeyaa abwaanadii suugaanta looga dambeeyay qayb kamid ah ayuu magac dhabayaa suugaantu qiimaha ay leedahay budinatida cajuda ku xigana sheegaya oo bal heerkay nolosha kaga jirto sidee bay ahaan jirto maxay u taagnayd ayuu oranayaa inta kadib wuxuu ku xigsiinayaa qodobka koowaad oo ah kokii loo dhaqaaqay dhanka guurka hablihii Soomaaliyeed dad noocee ah bay marka koowaad ahaayeen dumarkii Soomaaliyeed wadina sifeynaya xishoodkoodii akhlaaqdoodii eedaabtoodii dhowrsoonidoodii ayuu ka sheekaynayaa kolku inta taabta ayaa hadana wuxuu ku sii xigsiinayaa guurku qaybo u lahaa oo aniga ila muuqday 4 qaybood baan oo asaasi ah walow 7 ay gaarsiiyaan intaan dhalinyarta ka ararkay markay qaybqaybinayaan ama odayaasha laakiin 4 qaybood baan anigu soo hoosgeeyay inta kadib hadana gabadha wanaagsan iyo hawshii ay qaban jirtay iyo kaalinta nolosha ka haysatay sheekh Xuseen waxa kale ku sii xigsiinayaa dagaal haduu dhaco iyo maaragtay kokii had yeer gay waxaan ku noolayn colaadeed dadkii xeerboogtida ahaa sidii gobonimada lahayd ee u dagaalami jireen iyo dadkii aan la leyn jirin birimageyda la oran jiray sida magta dadka maganta baan u jeedaa magyaan oran dadka maganta odayaasha dadka xanuunsanaya birimageyadii bataya wuxuu ka sii dambaysiinayaa garta iyo nimankii geli jiray iyo qodobo noocaya alla bari ku dhameynaya ducadana aamin waan faa'iideeyay wadana oranaya in dhaweyd madaalow ma dhigin dhaabadii gabaye waataan dhabriireen baryaan dhaafayeen xidhaye waataana dhuurkiyo ka rogin dhacanti saarayde dhudaheedii waataanan dayinbiliyo dheeraade ma dhakaabin maansooyinkii dhumooda weynaye ha yeeshee waxaan dhabaaboon ararta dhoobaaba xarun bay saqdii dhexe urdada waxii dhaqaajeene andhafiif shabayd gaabku wuu kala dhantaalaaye afartaa intaan ku dhildhilay maysku wada dhaabay taariikhda lama dhuumiye dhidibka mawjoojay dhuuxiyo qamaaniyo salaan dheefti gaabay howle dhukan iyo darwiish dhoolaraar gabayaduu dhiibay ayax dhowre dhaabtii gahayrama dhunkaal sheegay dhamaciyo dhudiina miriyo halalkii dheeldheeli cabdilaahi dhoodan godku dhugaasho gaadhsiiyey dhiqlaa iyo sidii raagesow uma dharbaaxyeyneen dhiqla iyo sidii raagasow uma dharbaaxyeynin hawraar galxood laga dhamo caana laga dhaadhyo
dhismeeda layguma qabtee maqal dhawaaqayga ujeedada haddaan dhimiyo ondhayda ka caddeeyo ummad waliba dhaqan gooniyay gaaru dhigataye ummad waliba dhaqan gooniyay dhinaca saartaye hiddahay kuwaada dhaadata amase dhowrtaye dhallintiyo dhasheeday bartaa dharaqsigiisiiye suugaana waa dhuuxa qora dhaxal lawowgaye waa dheeman taariikh sidoo laga dhawaystaye waa kayd dhigdhiga caadadoo laga dhagoostaye misna waa dhambaal kula iman dhigaane soo yaale dhacdo iyo waxaa lagu xusaa faalla dhumuc weyne gardhuyaashay xaal lagu dhugtamay xaaja lagu dhiiqday dhakafaar amuur keensatiyo dhaygag laga yaabo wax kastoo khalqigu dhiimiyuu dhabuuga faalloodo iyadaa ku qori dhaydka iyo dhooliftiin badane waxay soo dhawaysaa amuur dhoobanoo xidhane inkastoynu dhaalan guurayuu dhaqankii duugoobay oo layska dhinacyacayuu haatan dhuuga toobay ama uu dhurwaaqaatay oo dhidirka loo loogay balaan qodoba dhowroo mudnaa halalka soo dheegto haddaan si dhiraan dhiriyo nuxurka ku dhiibo hablihii dhalaha qaadan jiray wada dhalaalaya eed dhoolka moodaysa iyo dhibicda horaysa xishood dhaba akhlaaq dheeman oo dhaygag laga qaado hablihii ku dhaatee milgiyo sharaf ku dheeraaday marka uu rag soo dhambiyo dhinac ka soo muuqdo dhalxashkiyo dharkaynkiyo dhalool dhabiiga laantiisa dhilow yahan dhammaajiyo dhigriga dhulka iyo dheenta dhaameelka quudhaci dhaliyo dhamasta oo gaara dhafarur dhallaan dhuuxda iyo wadarta dhiigsarka juuqaha dhexdoodiyo xidhku dharab ku buux dhaafay hablihii ku dhuumana hayeen cidii dhaliilaynin hablahaan dhaleeciyo xumaan laga dhawuugaynin hablihii dhulkaa eegayeen samaada dhowraynin hablahaan dhawaaqiyo aqoon hadalla dhiirdhiiran hablihii dhagaysana hayeena marka dhaafaynin hablihii sharciga dhuuxayee diinta dhiganayay hablihii markaad dheehateed dhugaata ruuxooda jacayl aad u dhuumuc weyni uu kugu dhammaanayay walow uu dhuyaal yurub galo oo dhoof xun lagu waalay gayigeenna kama ay dhammaan dhaayeelay dumare bulshaayay dhaqaaleya oo dhowra sharaftooda dhisma reer markii loo kace lagu dhaqaaqayo ama gaari dhowrson la rabo inii lasoo dheelmo dhabayowgi loo qaadi jiray laguna soo dhaashtay yaan kuu dhex gaalaya amaan dhibic ka faallayne midii dhabar garaac buu ahaa dhiirashiya xooge oo lays dharbaaxo dhagxaan laysla dhaacayaaye midna heer inay soo dhowaan inaan la dhaadhaafay oon lagu dhibtoon buu ahaa laafya dhaalan dhoole midna xeeladii loo dhigee wadaatay dhiifooni yay gool ku dhaaliyeen rag badan amay ku dhaateene yay gool ku dhaaliyeen rag badan amay ku dhaateene midna sheekhyada dhaadi jiray culima dhowrsoone oo loo dhammaan jiray dhiskiyo dhidibka qoyskaase markaasaa dhariyo raashin iyo dhuuni kala jaada dhoodi meer baroorkiyo fardaha dhabar ku weynaaday dhowr wiil magool dhowradiyo dheehayayro
adhigii dhaqnaa iyo loodii dhinka lagu sheegay hantida la soo dhoobi jiray yarad la dhiibaye midkaasaana ugu dhaadanaa saydundhugateene sooyaalkii lagu dhaadan jiray dhaxalladii jiitay barbaartaay ku dhaagayayna dhuumin dhaqaamadeeniye dumarkiina soo dheeli tiray marar la soo dhaafay dhankay nolosha haysteen haddaan dhibic ka soo qaato dhagaatiga garkiyo dawliskiyo dhudan la soo hayo dhagka saar gufayay isdaahintii dhinac ku xirmaysa dhigta sare udbaa dheerarsiyo dhilla toolanayo dhoomaha biyaha kaydiye dhaaxa lagu reeyo guri aad ka gaali dheelka iyo dhaxan ku gogoysa ood milicda kaaga dhuumatiyo dhibicda roobadka dharigay karshaan iyo anfaco dhuunigiyo oonta daryeelkii dhallaankiyo ilmaha dhimirka loo buuxin dheeliga siday uga jiraan dhoobadiyo boodhka dhabcaaliyo ninkii liitay iyo geesi lagu dhaarto dhabcaaliyo ninkii liitay iyo geesi lagu dhaato intay dhiiri gaaliyaan hadday taraadu jeer dhaafto iyaga intaasoo dhan iyo dheeri loo qiraye aqalaan dhabeel gaariyo dhudii ka soo toosin oon gabadhi dhaandhaambinayn lagu dhaqnaan waaye dib u dheehda oo jaallayaal dhugaasha weyn yeesha laba dhinac hadday diirto weerarku isdhaafo dhufaysyadana lagu daata iyo godiyo meel dhuusan dhashiikiyo garnaylkuna hanqadho dhamacda baaruudda gariir dhacay daraadii hadday eefintu dhaalowlayso dhudhummada haddii laysjaro dhagarna loo baaqo dhiididiyo hadduu dhigay iyo dhuuxu wada daato ama beeldhignaydon dhibiyo balaaba dhowraynin dhalfiifaha xasuuq laga dhigo galowgu dhilaabo oo geesiyaa lagu dhugtamo dhiiri lagu sheegay dhimashadu hadday badatay iyo dhaawacyada buufi dhakhtaradu hadday buuxsamaan maydka lagu dhoobay dhanqaryada la soo waaridiyo dhugucda soo yeedha dhablihii lugayayo hadduu dhan ku soocon waayo dharaartiyo habeenkaba hadday cididha kooldayso dhacdid haddii laga tagiyo dhanta iyo helo oo laysu dhaarto colaad laysdhexmaari waayo oy nabadu dheeraato oy koru dhowaatayso hadday maganiso dhelmatiyo cidaan la dhaadaynin ama gacanta lagu soo dhigo dhabiga loo suuqo dhallaan iyo abwaan iyo duqay dhalaafa luuqoobay sharciga dheehatee diinta dhiganaysa waalidu kuway dhalan rogta dhimirku naafoobay dhooray dhalmaan iyo dhabeel dumar dhammaantoodba in dhibaata loo geysto lagu dhardhaareeyo dhaqankeenni ma ahayn hortiisoo dhisnaan jiraye dhaxalkii rasuulkiiyo waryaan diinta laga dhoofin hadday xaaja dhoobowdoy dhilla kor u dusho ama ay dhawaarantoy gartii dhuluuxdoy qiiqdo oo laysla wada dhaygagoy dhiftu wada gaadho oy dhuudhi roorto samiyo dhayma laga quusto oy dacar dhagweyn dhaashatiyo xabag dhunkaaleedba hurgumooyin dhoobna hadday dhayda ka daato maaliyo intii dhogor lehee dhuuni laga quuto
awr miciyo dhooshi listoo dhaayin lagu qoojay dhuuriyo haddii layska dhaco dhagayarow geela ama uu dhibkaala taaganyoy dhabanna haysgaadho dhakafaar haddii uu dhacay tala dhanaanaato mid dhammaasan oo dhiidhyadoo shayna dhuuganaynin mid dhammaasan oo dhiidhyadoo garaasho dhaandhaamay dhoylaa wajiil dhoohan iyo kurayga dheelaya shirdhaboolaq ruux dhaaqayoo dhammaasan oo liita nacas dhunta caaliyo dhufaan fulay dhabriiraya dhabcaa looma saaraynin iyo badow dhafoor weyne badhgaraad dhammaysliyo cuqaal fiira dhuumo weynle rag dhafoo xaqiiqada dhigdhiga dhidibkan u waasa garyaqaana loo soo dhiloon cidiina dhaafaynin xeer beegtibaa dheehan jiray oo dhabuulahaaye xeer beegtibaa dheehan jiray odaya dhiifoone dhasalaalaqiyo qayrada lala dhuxlaynayo isdhexyaacu ceeb buu ahaa sidaa dhallaankiiye dhaqanka habbooneen lahayn qodob dhaliilkeena dhabbihiisa qaado murtida hoosu wada dhuuxa ergadana dhanbaa laga qoro dhaxalna loo siiyey yaan sida dharaarta iftiindhayda ka caddayne dhaqan sida xaqiiqada dhafoo dhowra ciriqeeda dhexdhexaad markii xaaje iyo talaada loo dhiibo maahmaah dhalaasho ahayd dhigaan ahay raaci yaan ku dhildhiilayaa cabdow xeerar loo dhigaye dhidirka lacaaye afxumo lagu dhabooqayo waa inay dulqaadkii dhurwaa dhabuulahaadaane cadceed iyo kaliil dhaharatiyo dheelka lagu hoobto waa inay sidii dhagaxyadii ugu dhammaataye waa inay sidii dhagaxyadii ugu dhammaadaane haddii uu dhanqaalan gaajayo dhibi oon tabto waa inay dhigiisi kudkude dhabar adkaadaane waa inay dhigiisi kudkude dhabar adkaadaane adigoo dhabiiltami haddaad dhinac kalu eegto bulshaday dhex joogeen dadkii dhubka boqor saaray ma dhubqaaliyay noowana kama dhaboocayne ixtiraam tixgaalin dheerayay ula dhamaayeene markay dhuun dhabaan xaajadii dhamacda keenaysay go'aankay dhidbaan iyo gartay kaga dhagsiiyaanba dhayalooma diidayn ciyaaramaase dheeldheele murtida haddaad dhiimisoo dogaato sooyaalka dhaqankaasi door buu ahaa inaad dhimbiilowe dhallinyarada gaadhsiiya way dhabaabaceeyeene waxba gabayguyuu iga dhabqine waxaan ku sii dhaafay adduunyada dhammaanteeda oon dhibic la reebaynin hadduu eebbe kuu dhiibo oo dhaxa lagu siiyo ood dhabaqsatood waayo badan dhiilu cuulanaysay dhadhabkii yaraa iyo haddaad dhadaadi qiimaysay mar haddaanad soo dhididinood koriisu dheeraysay ood kibir la dhaandhaantay ood dhacanta jiidhaysay sharcigiina soo dhaawado dumisay oo diiday dhalanteed hadday kula ahayd amaase dheeldheelba dhalanteed hadduu kula ahaa amaase dheeldheelba markaad dhimatideed hooyatiday kugu dhidbaaniilka amay dhagax ka tuulan godkii laban la dhooqeeyey dhakafaar ayaa kugu dhaciyo dhaygagiyo yaabe dhakafaar ayaa kugu dhaciyo dhaygagiyo yaabe markaasaad dhukaan adiyo dharaska qadaye
dhimbiilaha cadaabkiyo rabow dhuxula qaacay dhamacdii jaxiim iyo allow nar hanagu dheelmin dhamacdii jaxiim iyo allow nar hanagu dheelmin aamiin aamiin in ilaahay naga ilaaliyo naarta kulaylka badan leh dhegeystayaal intaasaynu ku koobaynaa qaybta koobaad iyo barnaamijka aanu ka qabanay walaalkeen cabdulle maxamed sigad iyo gabaygaa qiimaha badan leh ee ka warramaya dhaqanka ee ka warramaya aakhiro ee ka warramaya if ee ka warramaya ummadan soomaalida la yidhaahdaa tan iyo markii ay dab ka baydhay dee siday nolosha usoo dhisaysay guurka nabadda garta xitaa dhanka garta gelaya ee xeer beegtiga laga dhiganayo astaamaha laga doonayo inaanu noqonin fudud inaanay gaajadu damqin inuu nolosha wax walba u adkaysan karo si uu ummad dhiigooda u baajiyo si uu qof xaq lahaa xaqiisa ugu soo dhiciyo inuu duruufo badan u dulqaato waynu uga mahadnaqaynaa tixdaa quruxda badan lee uu tiriyey walaalkeen cabdulle maxamed dhegeystayaal waa hubanti inaydun ka heli doontaan suugaan badan oo cabdulle curiyey oo ka warramaya guud ahaan nolosheenna iyo quruxdeeda intaasaynu ku koobaynaa waa anigoo walaalkii mawlid aadan biixiya iyo habaynta iyo qoraalidda maxamed mawlid ismaaciil saasaynu isku ognahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu